بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعة وناكسن دمان أصحابته عن كل هاي براها السوشيال ميديا أو أي وكبدن تهاي لنكا إيو فيسبوك هذا يدو محسنتهين سيدا هذه تاجرتان أصحابته دمانتينا أنا مر والبا وحي رأيي ma wixii wanaagsan Soomaalidu wanaagsan mar walba oo aan laga gaban aan doonayno in aan banaankan u soo dhigno waan ka wada hadalno mar walba ra'yigu kala duwanaan kara tabcan qofkii ra'yigiisa ka duwana gacmo furan ayaa lagu soo dhaweynayaa waxa la leeyahay soo dhawo marka waxa laga yaabaa caawa in aan soo qaatay very unusual subject in aan soo qaatay caawa taasoo ah siyaasadda waddanka Soomaaliya qallifsan qof walba ka dheregsan yahay inaan maaragtay aan soo qaatay laakiin title ayuu wataa title-kaas meesha yaalana waa muhiim waxaan ku soo qoray madaxweyne farmaajo ayaan ku soo qoray qof walba oo Soomaali ah oo annaga naga mid ah ama qurbaha ha joogo ama waddanka ha joogo waxa saaran mas'uuliyad aad u weyn ayaa saaran sababtoo ah haddii aan idhaahno maxaa iga galay Soomaaliya haddii adna mas'uul ayaa ka tahay wixii ka dhacay ama qofkii qabsada ama qofkii ka mas'uula waddankii wuxuu ku jiraa xilli runtii la dhihi karo waa waqtigii ugu halista badnayd ayuu ku jiraa waddanka hadda the most dangerous time ayuu ku jiraa waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay is yidhaahdaan waddankii wuu dhismayaa wuu socdaa wax walba laakiin waddanka halista uguma jiro dadka wax qarxiya ama dadka wax dila uguma jiro halista dadkaas waa haddii loo fiiriyo scale oo 1 ilaa 10 dadkaas waxay imaanayaan hal meesha ugu dambaysa waddanka inta kale wuxuu halis ugu jiraa musuqmaasuqa iyo cadaalad darrada waddanka ka jirta saawgeeda qof walba oo Soomaali ah qurbaha hadduu ku nool yahay waddanka hadduu ku nool yahay mas'uuliyad ayaa ka saaran in waddankii indhaha loo furo oo runta ama reality-ga wax socdana si fiican loo eego hadda waxa la dhihi karaa waddanka Soomaaliya xilligii qabiilka waa laga baxay qabiilka hadda waa laga xishoodaa qofkana hadduu qabiil ku socdo waa lagu fadeexeeyaa ama haddii qabiil ku raacdid qofka aad leedahay waa taageeraysaa waa lagu raacaa qofka systemka waddanka uu ku dhisan yahay oo hadda qabaa'ilaad ah iyo waxaan insha Allah horta way dhamaanayaan qofka maanta ku taageer ciduu doono ha ahaado hadduuba Soomaali uu yahay isku qabiil ayaa tihiin marka qofkaas aad isku qabiilka tihiin ee Soomaaliga ah marba ku taageer waxa uu qabto ha ku taageerin ninkaas isku qabiil manihim ama isku jifa manihin ama isku meel kama imaan waxba ka heli maayo marka iyadoo saas ay tahay waddanka qaraxyadan dhaca hadda waddankeena iyo waddanka Ciraaq iyo Syria bal hal isu fiiriyo boqolkiiba boqol Soomaaliya ka fiican sababtoo ah Soomaaliya inta qofood ee maalintii lagu dilo iyo inta Syria lagu dilo iyo Ciraaq isku mid ma ahan marka waddanka wuxuu halis ugu jiraa musuqmaasuq iyo cadaalad darro ayuu ugu jiraa dadka qaarkood waxa laga yaabaa Cabdinaasir siyaasadda kuma fiicna maxaa ku soo dhaxgeliyay sababtoo ah anigu waxaan ahay qof Soomaali ah waa inaan hadlaa hadalkaygana hadduu meel dheer gaarayo faa'iido weyn ayuu keenayaa waxaana filayaa hadalkayga inuu meel dheer gaarayo dad badan ay dhageysanayaan ama hay gurey ha ahaadaan ama ha ka duwanaadaan ama qofkay doonaan ha taageeraan waxay ahaadaan welina qof ma taageerin aniga waxaan baaritaan dheer ku sameeyey qofkana dee haddii dadka cartoonka qora ama dadka shabakadaha qora oo hadda dadku waxay u bateen boqolkiiba 90 dadka qora ma ahan dad professional ah ama dad wixii bartay ku shaqeeya ma ahan ama qof waxay ku taageeraan ama qabiil ama lacag buu siiyey ama qof isaga ka soo horjeeday nacab yihiin qaabkaas loo taageeraa qofka waxa loo taageeraa sheekadii ahaan jirtay gaalka dila garsiisii oo af Soomaaliga mahmahdahay qofka tayadiisa ayaa lagu fiiriyaa waxa la yiraahdaa qofkan waa qof tayo leh quality leh wax sameyn kara dadkay ka hadlaan laakiin haddii qof lagu yiraahdo hebel tayo ma leh wax ma sameyn karo oo laga hayo wax evidence ama caddayn laga hayo qofkaas lama taageeri karo
marka qof maxaa lagu taageeraa waxaa lagu taageeraa soomaalinimada hadda qabiilkii wuxuu isku bedelay soomaalinimo Donald Trump dadka uu ka soo dhoofiyey waddanka Mareykanka iyo Obama looma soo dhoofin waxay ahaayeen daarood ama hawiye ama isaaq ama qabiilada kale ee waxay ahaadaan Soomaaliya ka jira uma soo dhoofinin markuu lahaa viisooyinka waa ka mamnuucay waddanka Mareykanka in lagu soo galo oo maaragtay gacan lagu siiyey sheekadu ma ahayn viisada laga mamnuuco qoladan la yiraahdo qola hebel oo qabiil hebel ma waxay ahayd Soomaalida ma doonayna waddanka laga mamnuucay ahayd sheekada marka ninka cadowga ah ee adiga ku dilaya ee South Africa ama Kenya ama meelaha kale ee Soomaalida lagu gumaado markuu ku dilayo male qabiil hebel waaye wuxuu ka soo jeedaa jufadaasi aan dilna ku male wuxuu ku leeyahay is Somali badda Mediterranean-ka marka lagu dhimanayo ee badda dadka ay la degayso badda ma dhahayso waa qabiil hebel ama jife hebel ama 4.5 aan la degno qabiilka anagu aan wada leenahay waxa la yiraahdaa Soomaali waxaanu ka hadlaynaa dadka daacada ayaanu ka hadlaynaa oo adduunka la yaqaan marka waxaanu ka hadalnay aan iri Maxamed Cabdullaahi Maxamed oo loo yaqaano magaciisa Farmaajo ayaan maanta soo geliyay Facebook-gayga waana markii ugu horeysay qof siyaasi ah aan soo geliyo oo wax aan ku taageero marka record-kaygana waa yeelaa qof walbana waa u jeedaa waana arkaa waana og yahay aniga shakhsiyan inta badan ma jecli in aan iska hadalno ama shakhsiyan aan iska hadlo ma jecli qofka hadduu yiraahdo aniga waxba laguma jeedo waa nacasnimo la iskama hadlo dadka ayaa ka hadlaya marka record ahaan waxa dhacay xataa siyaasadda inaan isku qalifnay dad aad isku dhawaan asxaab ma ahna waalid inaan isku khilaafnay ma doonayo inaan ku soo celiyo qof waalid oo aniga waalidkay inaan isku khilaafnay siyaasadii waan iri kugu taageeri ma intaas kale waa qalad waa ka weyn tahay inta Soomaali baa tahay marka Mr Farmaajo waxaan kula kulmay hal sano iyo bar ka hor magaalada London dad badan ayaa ka soo qayb galay xafladda markay dhamaatay sawir ayaa dad badan iskala qaadeen aniga waxaan iri Mr Farmaajo I am sorry sawir kula gali maayaan iri sababtuna waxay ahayd wili kaama dheregsanayaan iri waxaad gashay waan maqlay inaad qof fiican tahay oo dadka ugu muhiimsan Soomaaliya inaad gacan qabatay dadka ugu muhiimsan Soomaaliya waa ciidamada qalabka sida ee har iyo habeen u dhinta difaaca dalka gudihiisa iyo dibadiisa oo ma aragtay maanta $100 ama waxay doonaan ku shaqeeya iyo haddii la barbar dhigo xildhibaanada baasaboorada European-ka wada haystay ee waddanka ku laabtay ee villooyinka ka dhistay ciidamada qofka caawina wuxuu yahay geesiga Soomaaliya marka waxa lagu ammaanay oo la sheegay waa in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gacan laakiin weli halahaas is not enough banary I have to see more aan kugu taageero saa awgeed ma doonayo inay shaabad ama istaamba igu dhigto dooni maayaan maanta haddii isku kaas sawirana gacanta ku gelinaya waxa la leeyahay oo Cabdinaasir wuxuu taageeray Mr Farmaajo waxaan iri adiga laga arko markaan u koora galay oo aan ku soo qoray meesha waqtiyo badan aan eegay waxaan si fiican u arkay dadka isa soo sharxaya madaxweynaha hadda jooga waddanka Mr Hassan Sheikh Sharif oo very decent guy iyo dadka kale iyagana soo sharxaya waxay ahaadaanba qofka markii uu daacad u yahay ee Soomaalinimada ay ku jirto oo aanu u socon inuu waddanka business uu ka sameeyo marka ereygan businesska waa gooni markaan idin leeyahay dadka wax haleeya oo dadka dila waxooda waa 1% waxba ma ahan waddanka waxa la degaya horta Ilaahay naga haya 8 February ayaa lagu dhawaaqay waqti fiican Allah ka dhigo laakiin waddanka waxa la degaya dhulka la galiya musuqmaasuqa maalin walba waddanka saameeya marka su'aasheedii ugu horeysay waxay ahayd aan weydiin mudane Farmaajo ma ka shaqeyn doontaa ma ballan qaadi doontaa musuqmaasuqa waddanka ka jira in la dagaalantid wuxuu igu yiri 24 saac
intaan noolahay intay nafti ugu jirto waxaan la dagaalamayaa waddankaas musuqmaasuqiisa waxay doontahay u qaadatee ereygana waa la iska dhihi karaa actionka ayaa ka badan marka qofku wuxuu ku dhihi karaa waxaas waan sameynaya qof siyaasi ah oo ku dhihi kara ma jirto maya musuqmaasuq la dagaalami maayo saraan ka dhisanaya lacag baan xadaya waxaas baan sameynayaa cid ku odhanaysaa ba yaraatee ma jirto Mr. Farmaajo iyo dadka kale xataa jira maanta wuxuu isaga noolaan karay Seattle shaqo fiican ayuu haystay marka ma ahan in business iyo magac laga sameeyo Soomaali marka la tago waa Soomaalinimada qofka haddii ay ku jirto Soomaalinimada inuu wadankii ku laabto wadankii wax u qabto sababtoo hadday u badato 8 sano ka badan sida Mareykanka kale madaxweyne ka badan ma noqon kartid hadday u badato haddiiba motion iyo balaayo lagu keenin marka Mr. Farmaajo waxaan ku arkay in dhalinyaradii dadkii maatada ahaa dadkii masaakiinta ahaa dadkii waxgaradka ahaa dadkii qabiilka Soomaaliga ahaa waayo ereyga qabiil haddii la yiraahdo waa la boodayaa intasaan dadku waxay isticmaalaan ay ka soo galaan dhanka iyo quraanka Soomaaliduna quraanka haddii laga soo galo dadka muslimiinta ah way gabadaan marka qabiilka quraanka in la isku barto ayay ku leeyihiin Soomaalida barashada ma ahan qabiilka isticmaalidiisa la isku laayo oo la isku kufsado waxa soo kale ma ahan Mr. Farmaajo 6 bilood ayaan video walbo laga soo duubo iyo qoraal walbo laga soo duubo iyo sida uu hadlo waan dhageystay waxaan comparison ku sameeyay aan si eegay Sheikh Sharif madaxweynaheena hadda jooga ayaan comparison ku sameeyay ama aan isbarbar dhigay isna waan eegay waxaan ka dareemayaa in Mr. Farmaajo ay Soomaalinimada ay ku dambayso dhalinyaradiina ay ma aragtay ay leeyihiin Mr. Farmaajo haddii Allah ka dhigo Allah awood leh ayaa wax walba sameeya inuu yahay madaxweynaha mustaqbalka saa la socotaan Soomaaliya dadka ugu badan waa under 30 years old dadka ma oga intooda badan soddon jirayaasha ayaa ugu yar maybe asxaabtayda different opinion ra'yi kala duwan dhanka siyaasadda way yeelan karaan waxay taageeri karaan qof walba oo madaxweyne soo sharxa ama ha ku taageeraan qabiil ama ha ku taageeraan Soomaalinimo qof walba waa taageeri karaan mar walbana aniga waxaan ahay qof respect ku sameeya ama sharfa ama soo dhaweeya ra'yiga kala duwan laakiin 6 bilood ee aan daba socday Mr. Farmaajo waxaan soo gabagabeeyay ballanteedu ahayd maalinta lagu dhawaaqo electionka Soomaaliya in la qaban doono in aan banaanka aan soo dhigo waxaan ka aaminsanahay kana waa fursad ayaan u helaa marka fursadana oo waxay tahay qof ayaa wuxuu dhihi karaa hebel waxa la soo geliyay oo la yiri think tank oo Ethiopia laga soo qoray think tank waa dadka ayaa wax qora dadka intellectualka ah ee wax bartay ee wadanka lagu aamini karo waxay qoraan waxay yiraahdeen hebel ma qaban karo hebel lama qaban karo hebel ayuu wuxuu danta wadanka waxay ku jirtaa hadda maanta haddii Mr. Farmaajo ilaahay u kasbado uu ka dhigo inuu madaxweyne wadanka ka noqdo hadduu Ethiopia uu tago uu gacanta u geliyo madaxweynaha Ethiopia ula shiro danta Soomaaliya ku jirta hadda ka hor ayaa shakhsi soo sharxaya ayaa waxaan ku yiri haddii madaxweyne aan noqotid askarta Ethiopiaanka ee wadanka jooga maalinta ku xigta ma leedahay ka baxa maya ayuu yiri ninkaas wuxuu ahaa siyaasi aad u bisil ma doonay magaciisa inaan sheego wuxuu ahaa siyaasi aad u bisil sababtuna waxay tahay haddii uu ahaan lahaa qof aan bislayn wuxuu dhihi lahaa yes wadankeena Ethiopian Kenyaati Djiboutian qof walbaan ka saaraynaa raalli ahaada waxaya qoraal ayaa soo galaya gacantayda laakiin wuxuu yiri haddii Ethiopia iyo Kenya wadanka aan ka saaro waxa soo baxaya vacuum wax la yiraahdo vacuumka waxay tahay wixii wadankeena ku dhacay markii wadanka uu ka baxay Allah u naxariistay Maxamed Siyaad Barre madaxweynaha ee Soomaaliya vacuumkii ayaa qabiil iyo warlord iyo dad wadankii burburiyay 25 sano ugu dambeysay ay soo dhaxgaleen marka adduunka waxa la iska ilaaliyaa waxa la yiraahdo vacuumka ayaa la iska ilaaliyaa ama inay soo baxdo meel qofna aan ka talin oo marka dambana dhibaato keenaysa marka hadda wadanka Mareykanka Obama iyo Trump markay isku wareejiyeen xukunka waxa la yiri
a peaceful transfer of the power ayaa la yidhi raalli hada kaasoo ah in si nabadgelyo ah xukunka la isugu wareejiyo marka haddii xukunka uu soo kala dhex galo maalmo dhexdooda waxa ka faa'iidaya tuugadii dadkii cadowga Soomaaliga ahaa cadowga Soomaaliga waxa ugu horeeya Soomaalida ayaa ugu horeysa marka cadowga Soomaaliya haddii aan maqashid ma ahan number 1 ma ahan dadka dariskana la ah waa dadkeena annaga ayaa cadow isku ah waxaadan adiga samayn cid kugu qasbaysa haba yaraatee ma jirto cid kugu qasabta male inaad gobol gobolaysi aad samaysatid marka ugu horeysa adiga ayaa laga dhaadhaciyay marka Mr. Farmaajo ereyga uu yiri musuqmaasuqa xilligaas aad ayaan u dhacay kadibna videos aad u fara badan ayaan ka daawaday oo aan arkay oo aan u dhacay musuqmaasuqa ka bilowda nabadda iyo cadaaladda yaa sareysa dadka intooda badan waxa laga yaabaa inaysan fahmin waxa la yiraahdaa 1960 waddanka Mareykanka cadaaladda ayaa ka jirtay slogankoodu wuxuu ahaa ama waxay ku kacayeen ay ku socdeen gacmaha ay ku tageen wuxuu ahaa no peace no cadaalad no justice no peace cadaaladda iyo nabaddu way isdaba socdaan maxaa ka sii weyn la dagaalanka musuqmaasuqa waddanka hadda ka horna waan ka hadlay Nigeria waa wadamada Afrika ugu qanisan oo petrol kale qof walba og yahay waa waddanka hadana ugu gaajaysan maxaa keenay hal state governor ayaa wuxuu gacanta ku dhigayaa 100 milyan oo dollar marar badan ayaa waddanka Ingiriiska lagu qabtay marka haddii corruptionkii uu bato meel walba ay gasho corruptionka waxyaabihii uu darnaa oo Soomaali uu ku keenay waxa ah qarxiska iyo dhibaatooyinkan dhaca corruption ayaa keenay ama musuqmaasuq ayaa keenay diyaaradii Muqdisho airportkeeda ka duushay oo iyadoo cirka maraysa la qarxiyay waxa keenay corruption dadka qaarkood waxa laga yaabaa inay yiraahdaan maxaa iska galay diyaarad qaraxday iyo corruptionka sababta loola dagaalo waxay tahay waxyaalahaas kale inay yimaadaan askariga taagan garoonka Muqdisho International Airport aadan cadde taagan haddii qof uu soo gudbiyo ama ilma adeernimo ama ku soo gudbiyo lacag uu ku soo gudbiyo uu halis u gilay dadkii kale oo diyaaradda raaci lahaa waa corruption Borsi Studio ama scholarship ama waxbarasho dibadda oo Turkiga ama Europe ka timaaday haddii 100 wiil oo Soomaali ah imtixaan aan u gelin oo qof wasiir ama xildhibaan ama qof kala soo xushay la siiyo waa corruption and is very dangerous corruptionka ugu daran ee hadda la arko oo physicalka ah bal dadka Muqdisho jooga ha eegaan waana ku soo laabanaya Mr. Farmaajo arintiisa corruptionka ugu weyn ee lagu arko Muqdisho waxay tahay hadda ka horna waa sheegay laamiyada cusub ee hadda la dhisay waa corruption number 1 maxay ku timid nin aan saaxiib nahay hadda ka horna waan sheegay halkan ka sheegay oo aan doonayn magaciisa inaan sheego oo aan dhihi karo waa shakhsi wadani ah Soomaali jecel isla markaana oo muhiima wax bartay aad wax u bartay ma ahan professoradan faraha batay ee Muqdisho jooga ee shahaadooyinka bugta watamaan waa nin wax bartay qofka markuu wax barto waa la qiimeeyaa wuxuu bartay dhisidda ayuu bartay waa engineer iska dhaaf engineeradan iska socdo oo engineer Hebel engineer Jaamac iyo engineer Abdinaasir iyo ragaas ma ahan waa nin annaga dhanaga cilmi badan cilmigiisana uu yahay cilmi sax oo uu ku shaqeeyo wadooyinka si loo dhisay yaqaan guryaha yaqaan dad badan ayaa yaqaan laakiin ma sheegay magaciisa waxaan ku yiri engineer wadooyinkii Chinese-ka waqooyi ilaa koonfur ka dhisay Talyaaniga 60 sano ay ku sii dhow yihiin ilaa hadda meelaha qaarkood ilaa iyo 1,000 kilomitir juc ma dhihin dadka aan jucaan aqoonin meel uu ka burbursan yahay male laakiin waxa maqlaa wadooyinkan yaryarka ee Muqdisho laga dhigay oo maalintii leey ma sha Allah quruxda Muqdisho laami hebel la dhisay asbuuc ka bacdi waxaan arkaa wadooyinkii oo jajabsane say ku dhacdaan ilaan waxa hadda aqoon qofku waa la weydiiyaa waxa la yiraahdaa bal iiga warna ii sheegay la yiraahdaa waa qoslay jawaab diyaaray wahay sababta ninkii cilmigii uu yaqaan qofkana markuu cilmigii u yaqaano isaga laga dhageystaa wuxuu yiri
waxa keena ayuu yiri musuq maasuq ayaa keenay waxaan musuq maasuq wadal ismaxa iska galay wuxuu yiri kontraad ayaa imaanaya ama United Nationka ama dawladaha Turkiga Talyaaniga waxyaalaha bixiya ayaa imaanaya markii ay keenaan ayuu yiri waxay ku soo dhacaysaa meelo qaarkood tabcan anigu ku eedeyn maayo wasaaradda hawlaha iyo ku eedeyn maayo laakiin ama xildhibaan ama meesha ay noqotaba hoos ayaa la iska taabanaya markaas waxa la leeyahay Cabdi Naasir waxa soo dhacday kontraad ah wadada Maka al-Mukarrama ama wadada Buulixuubey ama wadada Hebel wadooyinkan cusub hadda la bixiyay in la dhisaal rabaad adaa tolka ah mashiinkii bahalihii soo dhiga ayaa la leeyahay isaga la siinayo yiri wadadan waxay u baahan tahay yiri horta in la simo in la cabiro in biyaha meesha ay ka soo galaan loo duleeliyo oo meel dhuuqdo loo keeno sababtoo ah waa biyaha ayaa burburiya in la simo waxaan filayaa dadka qurbaha ku nool ama Soomaali jooga inay arkeen dad mararka qaarkood wadooyinka dhex taagan oo bahal sidan u haayo u taagan qof kalena uu doorbin ku eegayo waxa isla dadka magaalayeen dadkaas waxay cabirayaan dhulka miisaankiisa siduu yahay caradiisay tahay hadda Soomaaliya hadii waqti aad u dheer ka maqneed oo ku laabatay bal guryihii maxay hoos u galeen laamiyadii maxay isugu soo dhawaadeen wuxuu ii sheegay inay tahay in structure-ka dhulka la dhisay aan shub fiican la dhigin oo guryaha ay galaan bal guryaha Yurub ku dhulka galaan waxa dhisay injineer qoota ah marka nimankan waxa la soo siinaya ayuu yiri kontraaga waa loo sacbinayaa wasiir hebel ama xildhibaan hebel ayaa imaanaya waa furaya laami madow ayaa la saaraya asbuuc ka bacdi laamigii isla markii roob ayaa ku daaya marka sheeka ardaydeydii iga sheekayeen anoo Hyderabad ku sugan oo burca ka dhacday ayaan soo xasuusta marka this is corruption marka mudane Farmaajo wuxuu igu yiri aniga priority-gayga waxa ugu horeeya aan xoog saaray wuxuu noqonayaa wadanka in aan musuq maasuqa la dagaalo waxa inta ugu weyn musuq maasuqa marka la dagaalo waxa imaanaysaa maxaa taqaanaa yaa taqaanaa ma aan hada sheekadu waa yaa taqaanaa ladies and gentlemen waxaan aragnay dad useless markaan ku leeyahay bani aadamka useless ma noqon karo sababtoo ah haddii aniga wasiir ama madaxweyne ama xildhibaan aan qaraabo aan nahay oo magacayga sida loo qoro aan aqoon weligay iskool aan dhiganin oo marka dambe adigu aragtaan oo Muqdisho 5 Land Cruiser oo xabad karin la igu wado oo hay'ad ugu weyn aan haysto this is corruption and is very dangerous wadankan hoos ay ugu dhigaya dhalinyaro waxa joogta jaamacada ka soo baxeen oo qabiil saa u xogeyn aan ka dhalanin laakiin hadda wuxuu igu yiri waxay ogaanayaan mudane Farmaajo wuxuu yiri qabiil Soomaali ay ka dhasheen wuxuu la mid yahay wiil kasta oo Soomaali opportunity uu leeyahay ayuu lahaanaya kaasoo hadduu wax soo barto in condition ay imaanayso wadanka la isla xisaabtamayo oo aan leeyahay maalinta ugu horeysa aan leeyahay inuu saxiixo executive orders oo ah haye adigu maxaa ka shaqeysaa xafiiska waxaan ka shaqeeyaa madaxweynaha maxaad u qabataa madaxweynaha xafiiskiisa madaxweynaha xafiiskiisa waxaad u qabatay daadan sheegin albaabka ka baxaysa interview ayaa la sameynaya kala duwan shaqadii qofkii qaban ayaa loo keenaya waxyaabahaas waa waxa ugu horeeya oo aan doonayo inaan wadanka aan ku soo koreeyo yiri waxa kale oo ka hadlay in mashaariicda dawladda la siiyo shaqaalaha dawladda in wadanka ma ahan wadan dhaqaale badan oo wuxuu ka soo kabsanayaa burburkii ku dhacay waxaan kaloo aan weydiiyay oo aan ku iri canshuurtan hadda ka horna waan ka hadlay runtiina anigu waxaan noqdaa emotional ayaan noqdaa markaan ka hadlo waxyaalahaas oo kale wadanka Britania oo aan ku noolnahay shirkadaha la siiyo shatiga dhalinyarada aan aqoon shati macnaheedu waa a license waxa la yiraahdo ayaa la yiraahdaa shatiga waa Soomaali waxay bixiyaan shirkada ayaa jira la yiraahdo T-Mobile EE dad badan ayaa yaqaana BT la yiraahdo waxa laga qaadaa billions of pound ayaa laga qaadaa waxaan ka hadlayaa contract la siiyo oo wili contract wuxuu yahay 10 ama 5 sano waxa laga qaadaa 2 ilaa 8 billion oo dollar ayaa laga qaadaa waa telecommunicationka marka laga qaado oo qasab looga qaado waxa lagu dhisaa wadooyinka isbitaalada iskuulada veteranka madaxweyne Farmaajo hadduu alla ka dhigo waa shakhsigii ugu horeeyay oo dadkii 77 ilaa hadda dagaalada ku soo naafooway ee wadanka Soomaaliya intuu la hadlay la fadhiisay oo yiri maalmihii la idin fadeexayn jiray way soo dhamaanayaan buu yiraahdaa madaxweynaha ka noqda Soomaaliya
wayna ogaayeen way arkeen markuu ra'iisul wasaare u ahaa marka dadkan canshuurta wuxuu ballan qaaday in telecomkan waa cartel waa mafia Soomaaliya uma baahan xataa in Turki wax u dhiso ama Turki inuu siiyo lacag ama Talyaani haddii lacagaha laga qaado telecomka Soomaaliya ee mobilada internetka iyo waxyaabaha kale ee public service ka bixiya hadii laga qaado waxaanu ka hadlaynaa billions of dollars ayaan ka hadlaynaa Somali business modelkiisa waxaan ka akhriyay journalka Wall Street Journal la yiraahdo waa meesha kaliya hadday nabad ahaan lahayd you don't pay taxes and you gain $1 to $1 adduunyada meel ay ka jirto ma jirto meel gain laga samayn karo ama laga heli karo ama laga faa'iidi karo $1 to $1 macnaheedu waxay tahay haddii aan keeno wax lagu soo iibiyay $1,000 ayaan ka samaynayaa oo xataa diinta xataa ay diiday marka waxaad noqonaysaa instantly waxaad noqonaysaa multimillionaire ayaad noqonaysaa multibillionaire ayaad noqonaysaa marka canshuurtii ma bixisid waddanka kugu lahaa canshuurtii waddanka dhisi lahayd nabadda lagu keeni lahaa booliiska qaranka ciidamada qaranka waddanka lagu difaaci lahaa markaasaad waxaad ku mashquulaysaa gabre Ethiopia Kenya hebel ay ku mashquulaysaa gabre waxa ka weyn wax qarxay waxa ka weyn Ethiopia waxa ka weyn Kenya waxa ka weyn Djibouti waxa ka weyn Uganda waxa ka weyn musuqmaasuqa ayaa ka weyn musuqmaasuqa markuu baaba'o nabadda ay timaado dadkaas de choice ay leeyihiin ama si wanaag ah waddan kaga bax ama de waxaan xasuusanaynaa de Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo Axmed Gurey dadkii Soomaaliya ma aragtay u soo dagaalamay wax walba la xasuusanaya marka mudane Farmaajo waa shakhsi mudan in qof walba Soomaaliya uu taageero waxaad ku taageeraysaa oo kaliya qabiilkiisa waa qabiilka Soomaali qabiilkaygu waa Soomaali qabiilkiina waa Soomaali qof walba waa Soomaali laakiin qofka kale hadii ay ku jirto ma aragtay wax kale oo uqdado kale waxaanu ka codsanaynaa marka mudane Farmaajo iyo dadka la shaqeeya in aanu weydiino questions and answers oo aan ka duubano sababtoo ah taageerada hadda aan sinay hadduu madaxweyne noqdo uu iloobo hadii waan soo banaanka la soo dhigaya wax lagu taageerayo male marka la yiraahdo Mr Farmaajo haddii aan ku doorano codka aan siino dadka MP-ga noo ah oo xildhibaanada noo ah ama oo la kala qaybsado 4.5 ka aan qasab aan ku siino codkeena in lagu doorto oo Soomaali ninkii badbaadin lahaa aan noqotid waxyaabihii aan ballan qaaday hadda qaban weysid waa laga hor imaan hadii la yiraahdo waxaan weydiinaynaa questions and answers su'aal iyo jawaab ayaan weydiinaynaa Mr Farmaajo marka kala guur ayaa lagu jiraa waxa lagu jiraa waqti halis ah very dangerous time inta xildhibaan ee aqalka sare sanadka oo hadda horaan ka hadlay aqalka hoose oo hadda Congress-ka Mareykanka buu ku dhow yahay hadda oo waddan oo saas oo markay faqiir u ah de waxaan ka nahay physically faqiir ayaan nahay laakiin beeraheena Muqdisho iyo wixii koonfur ka xiga iyo wixii shidaal waddanka ku jira waddanka soo carab ayaan qanin ka aan leen laakiin qofka hadduu aqliga uu faqiir u ka yahay dib ayaa hays aqliga ayaa faqiir ka nahay marka waddankii oo saasa they cannot afford in ma aragtay intaasoo xildhibaan lacag la siiyo bal Facebookina ku laabta caawa waxaad eegtaan oo kaliya inta xildhibaan ama aqalka sare ah oo kule midnimo guul iyo cadaalad iyo horumar waxa loo qaatay dadkaas inay yiraahdaan anigoo ah xildhibaan Cabdinaasir soo doorta waddanka lacag inaan ka sameeyo gabarba gabadha ugu qurux badan aan guursado waxaan xadi karo emotion aan ku xadi karo aan keeno wadamada dariskana aan u saxabtumo haddii aad dhihi lahayd at least waxa lagu leeyahay Cabdinaasir waa xildhibaan daacad ee hal la doorto ayaa lagu dhihi lahaa marka maanta haddii doorashada ay noqoto mid oo qarsan oo wanaagsan oo hadda ay noqotay in 700,000 ilaa iyo 500,000 $500,000 this is crazy 500,000 evidence aan hayaa aniga oo ma aragtay oo cad oo dad bixiyeen lacag intaas lag ayaan hayaa oo lagu bixinayo waa investment waa maalgelin qofkana markuu maalgelin uu sameeyo wuxuu doonayaa something in return xilliga stock exchange sayladaha lacagaha lagu kala iibsado markaad investment aad samaysid lacag aad gelisid waxaad doonaysaa in return ninka ceerta ku qaadanaya Minnesota ama Toronto ama Stockholm ama London oo tolka ay u soo aruuriyeen $100,000 inuu xilwaan ku noqdo they want something in return marka Soomaalimadii ma jirto marka xildhibaanadii iyo dadkii meesha tagay vast majority of them were uneducated waxbarasho background male conditionkan wuxuu ahaan lahaa in la yiraahdo
xildhibaan aan degree jaamacad ka haysan oo la xaqiijiyey halla keen haddii la dhihi lahaa waxaan hubaa wiilasha Soomaaliga ee Soomaalimada ku jirto oo isku qabiilka ah ee Soomaalida isku wada ah in ay wadanka imaan lahaayeen marka wadanka wuxuu ku jira wax la yiraahdo stagnation waa waxa aan dhaqaaqin waxa la yiraahdo English status quo wax isbedel ma dhaco tusaale ahaan haddii maanta laba beelood oo degan Muqdisho ilaahay naga dhowree ama degan Balcad ama Jowhar ay isdagaalaan dad badan iska dilaan sidii hadda ka dhacday Gaalkacyo kale hadda Gaalkacyo sheekadeedu waa status quo ayaa la yiraahdaa Ingiriiska Gaalkacyo waa la isku dagaalay wiilal Soomaaliya lagu dhameeyay wax isbedelay ma laha wax soo kordhay ama lagu heshiiyay oo mar dambe inaysan dhicin marka sheekada hadda dhacaysa haday noqoto status quo waxba aan isbedelin waxaan ku noqonaynaa ladies and gentlemen qaabka Lebanon wadanka la yiraahdo bal Lebanon baro manawad baa ka jirta Lebanon waa ka jirta oo wadooyinka la isku maxabadayo la isku qarxiyo laakiin nabad ahaan hadii loo eego Soomaaliya ayaa boqolkiiba nabad wanaagsan oo mustaqbal leh sababtuna waxay tahay Lebanon iyo Soomaaliya waa isku model waa isku qaab dadka yaqaana wadanka Lebanon Soomaaliya kale uu ahaa dagaal sokeeyo oo qabiil ma ahan qabiilkan waa ka duwan yahay waa diin iyo waa mabda ma artay mabda'yada kala duwan ee dadku ay aaminsan yihiin ayuu ahaa markii laga daalay oo wax walba ay dhaceen ayaa 1989kii waxa la isugu tagay magaalada Taif ee ku taala wadanka Sacuudiga boqortooyada Sacuudiga ayaa martigelisay oo ballan qaaday billions oo maalgelin ah investment inay sameeyaan sida Soomaaliya lagu sameeyo kale shirki waa la isku mari waayay Soomaaliya xasuuso waxa lagu heshiisiyaa ama Djibouti ama Kenya ama Turkey ama Sacuudiga iyo waagi la dhihi jiray dangal lagu laabto madaxweyne hebel iyo ra'iisul wasaare hebel waa la heshiisiyay waxa la yiri Kacbada la idin geynaya Kacbada qofka marka la geeyo oo lagu soo dhaariyo dadka muslimka ah ee wanaagsan qalbigooda wanaagsan yahay mar walba way xasuusanayaan laakiin nin wadankiiba yimid inuu dhaco wax ku sameeyo Kacba muxuu ka xasuusanayaa Kacba waxa xasuusta qof islaamnimadiisa ay sax tahay marka haddii aan ku soo laabto Taif waxa lagu soo heshiiyo la yiri bal si fiican u dhageysta yaabkan adduunka waxa lagu soo heshiiyay madaxweynaha wadanka inuu noqdo shakhsi masiixi ah ra'iisul wasaaraha laga dhigo muslim sunni ah gudoomiyaha baarlamaanka laga dhigo muslim shiicaha laga dhigo marka waxa la diiday one man one vote waa la diiday waqtigaas waxa la yiri danta iyo nabad ayaa ku jirta ereygaas waxaan ka maqlay anoo idin dhaaranaya qof hadda mas'uul ah oo mas'uulka ugu weyn oo Soomaaliya ayaan ka maqlay afkiisa soo leh danta wadanka lagu ilaalinaya maxaa dhacay kadib waxa dhacday in shiicada ay ka dhalid badan yihiin caruur ka badan yihiin sida yahuuda kuwa diinta ay u dhalaan ilmaha way ka bateen waxay yiraahdeen ciidamo anaga aan leenahay gooniya telecommunication anaga aan leenahay waa wadan ku dhaxdhisan Xisbullah iyo shiicada waxay sameeyeen dad iyagu gooni ah cid la hadli karta male dawladii ay qabsadeen sunni lama dagaali karaan cid la dawladii oo dhan ay dusha ka haystaan dhowr sano ka hor 2000 iyo waxaan filay inay tahay iyo 11kii dagaal ayaa wuxuu ka dhacay magaalada Beirut wuxuu socday 4 saacadood waxaan ku sugnaa magaalada Beirut aan ku sugnaa 4 saac ayuu socday sunniyiintii iyo dawladii waxa loo baacsaday sida la isu baacsado kala loo baacsado wadanka waxa looga saaray magaaladii oo dhan magaalada xabad ka dhacaysay habeenkii wax bilaqseen ma jiro wax dadka dumar kufsaday ma jiro wax sameey ma jiro waa lagu kala tagay marka Soomaaliya waxay halis ugu sugan tahay arintan ka dhacday Lebanon oo hadda dagaal waxa socda qabow oo halis amar walba qarxi kara marka mudane Farmaajo waa alternative ma la dhihi karaa hadda ka hor ayuu ra'iisul wasaare noqday wax ma qabtay inta badan madaxweynaha wadanka ayaa awood leh oo wadanka wixii la rabo u qaban kara wixii la rabo u sameyn kara recordkiisa hadii la eego mudane Farmaajo waxyaabo badan ayuu qabtay aniga waxa kaliya aan ku amaanay wuxuu ahaa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ee la iloobay ninkii mushaharadiisa meesha u dhigay oo wixii lacag ahaa bal ka waran madaxweynaha Gambia oo yiri 1 bilyan oo sano ayaan xukumayaa wadanka oo markii dambana ka cararay wuxuu uu lacagihii ku jiray oo intaas milyan la baxay markuu ka tagay waxa ay taariikhda ra'iisul wasaare Farmaajo ninka kaliya oo conference waxa la yiraahdaa
meesha ay ku jirto hantida qaranka ay ku jirto lacag kaga tagi u ahaa ma kula tahay madaxweyne ama afrikaan ama wuxuu ahaadaba inuu kofriska ama miisaaniyadda dowladda meesha ku jirto lacag u kala tegayo marka he doesn't need inuu madaxweyne Soomaaliya ka noqdo haddii uu qaato xataa bishii uu qaato $2,000 reerkiisa iyo carruurtiisa loo noolaa laakiin somehow he sacrifice uu sameynaya wadankii uu sameynaya mudane Farmaajo sacrifice kaasoo ah in dhalinyaradii dadkii middle age ka ahaa dadkii wadanka waqti hore ka soo tagay oo niyadda u dhiso yiraahdo wal wadankii ku soo laabta dhista u yiraahdo cadaalad u keeno wallahi cadaaladda haday timaado wadanka ani waxaan ogahay qof walbo Soomaali ayaa taageer cadaaladda haday timaado oo la yiraahdo mudane Farmaajo cadaaladda ayuu soo celiyay wadanka nabad waa iimaanaysa waa dhismaya haddii waxaad ogtihiin Soomaaliya 5 sano ka hor dhibaatada ay ku jirtay waxaanu ahayn telecommunicationka iyo internetka number 1 East African ahayn oo nabad ay ka jirto wadamo horumar ah wali Afrika dii loo eego marka maxaa dhacaya waa enterprise people Somali waa ganacsadayaal business wax walba la keenaya soo Muqdisho maanta waxa laga helayaa wax walba laga helayaa meel walba laga helayaa laakiin Muqdisho nabad xumo ma taalo Muqdisho waxa taala ladies and gentlemen cadaalad ayaa taala musuq maasuq wuxuu ka bilowdaa kan hoose laakiin kan ugu daran waxay tahay dadka dhageysanaya oo daawanaya caawa oo aan ka codsanayo inay share gareeyaan ra'yigiina oo ka duwan aad ii sheegtaan waxaan idin sheegayaa cadaaladda waxay ka bilaabataa hoos musuq maasuq wuxuu ka bilowdaa hoos adduunkana waxa ugu daran waa muhiim adduunka waxa ugu daran dhaqaatiirta waxay yiraahdaan cudurka kaadi macaanka ama diabetiga hadda ka horna program aan ka sameynay waa cudur halis ah ay yiraahdeen very dangerous oo daawo loo haynin ama la ismudo ama karin loo qaato waa very dangerous haddii aad og tahay dangerous maaha waa muhiim cudurka diabetiga ama kaadi macaanka waa halis haddii aad og tahay laakiin halis ma ahan saaxiib ayaad noqonaysaa daawada qaadanaysaa cuntadaada exercise-kan bariiskan iyo hilibkan waxyaalahan iska ilaalinaysaa marka dambe haddii aad og tahay oo aad damiir aad leedahay musuq maasuq inaad ku jirto aad og tahay halis ma ahan haddii aadan ku jirin waa qaabkay marka waa qaabkan idin sheegay oo ah nin adeerkay ah ama ilma abti aan nahay ayaa wuxuu ka yahay xildhibaan ama wasiir ama airport ku haystaa ama dekada u haystaa ama wuxuu haystaa meel wasaaradda maaliyadda ama madaxtooyada meeshu doona ayuu haystaa anoo London jooga oo maqaayadahan afkayga uu saan ugu furan yahay oo habeen iyo maalin siyaasad ka hadlaya ayuu isoo wacayaa oo fadhi ku dirir ah oo school aan dhigan college aan dhigan oo inta joogay waxaan ku xisaabtamayay in adeerka ee wadanka qabsanaya diyaarad ayaa la isoo jaraya waan imaanayaa ururada haweenka ayaa waxay u soo dhaweynayaan magaalada Muqdisho airportka waa la kaxeynayaa maalintii dambe waxa halkan la ii gelinaya baajka halkan la isu geysto hadda fashion ka noqday halkan la ii soo gelinaya gaari ayaa la siinaya wasaaradda ayaa la ii dhiibaya waxaan Facebook soo gelinayaa ma sha Allah magaalada Muqdisho waa nabad wallahi waan ka raaxaysanay marka dambe Turki Talyaaniga Japan ayaa waxaan kaga qayb galaya anoo adeerkay la socda chief of staff ayaa noqonaya waa corruptionka iyo musuqmaasuqa aan la ogeyn oo ah kan halista ah oo la mid ah diabetic marka diabetic kaadi macaan oo asal aan u leenahay qof walba Soomaali DNA wata ayaa nagu dhacay DNA oo musuqmaasuq ayaa nagu dhacay musuqmaasuqa marka hadduu yeesho loo la dagaalama waxa la dagaalama damiir yeelo ugu horeyn qofka hadduu damiir yeesho Mr. Farmaajo waxaan ku arkay aan ka daraasay inuu yahay shakhsi damiir leh iska daaya Soomaali nin siyaasi hadduu xataa Mareykan uu yahay ama uu yahay mid Ingiriis ama wadamadan kale Afrika damiir iyo siyaasi waa kala fog yahay Mr. Farmaajo waa shakhsi damiir leh oo aan ku arkay intaan ka arkay hadalladiisa iyo Soomaali jecelka wuxuu isu keenay dhalinyaradii odayaashii ururadii haweenka dadkii qabaa'ilada kala duwanaa lahaa ee wadanka Soomaaliya ayuu isu keenay maalintuu ka soo degay Muqdisho iyo ereygu isticmaalay waa kan Mr. Farmaajo intuu telefoon ii soo diray madin Cabdinaasir waxaan doonayaa inaad iga soo hadashid sababtoo ah ani way taqaanaan waxyaalahaas kuma shaqeeyo inay asxaab yihiin ima soo wicin in la shaqeeyo ima soo wicin isku cidmanihiin waxa isuma galno isku meel kama imaanin hal habeen ayaan life isu aragnaa keligiis in my life waan isku aragnaa magaalada London uu safar ku soo maray marka halahaas waa ka saaraysaa Soomaalida asxaabta waxaan jecelahay qalbiga inuu nadiif ka noqdo waxyaalaha qaarkood marka halaas waa iga saaraysaa maanta iguba eeday haddii la yiraahdo war isku meel ay ka soo jeedaan mise waa qaraabo ma jirto
أنا يوم مستر فرماجو قرابة منهن صاحب منهن waxaan ahay laakiin shakhsi aan taageero boqolkiiba boqol aan u hayo waxaan ka arkay soomaalinimadii la yaqaanay inay soo laabanayso waayo wuxuu ka hadlay meelaha aan la taaban laakiin Mr. Farmaajo hadduu alla yiraahdo oo la doorto boqolka maalmood ugu horeeya waxaan ka aragno ayaan sugnaa Mr. Farmaajo haddii uu ka dhigo staafkiisa oo dhan oo isaga u shaqeeya hadduu ka dhigo wiilasha isku qaraabada yihiin oo qualified ay u yihiin ay yaqaanaan shaqada waanu soo dhaweynaynaa waxaan leenahay well done hadduu ka dhigo hal wiil oo ay qaraabo yihiin oo aan qualified ahayn waxaan leenahay corruption ayaa tahay waddanka sharaf ayaa ku timi sharaf kaga deg haddii kale walgu fadeexaynaya hadda adduunku waa isbedelay tviyadii iyo waxyaalihii laga hadli jiray iyo laisku waabsan jiray iyo sheekooyinkii way soo afjarmeen tv waxa daawada keliya dad qayacan oo certain age ayaa daawata dadkii kale hadda Facebook live ayaa soo baxay war hore loo sheegay meetingkii ugu dambeeyay kan la wada kan ugu dambeeyay Soomaaliya maamaadi marka hadda waa la iska daay hadda fiidiyoyada aan soo duubno idinka ay ugu taageertaan waxaan arkay video 100,000 oo qof ay daawatay wallahi aad baan ugu farxay sababtoo ah TV Soomaaliya ma jiro 100,000 qof ay daawato oo si live ay u daawato oo editing aan lahayn oo la saxin oo warninkan erey qalad u dhahay sababtoo ah waxa aad ka hadlaysid horan waa inaad taqaan iska hadal ma ahan laakiin qabiil baan u gafayaa Soomaali baan u gafayaa qof baan aynayaa dadka waxaas ma jirto ama TV lacag buu qaadanaya dad buu taageeraya hadda waxa jira xataa TV dadka qaarkood aan laga soo deyn baa jira qof walbana og yahay madaxda qaarkood ama xildhibaanada qaarkood ama ay laga soo jeedin sababtoo ah dadka kale ayaa lacag bixiya laakiin aan yaa lacag isiiya nobody qof xukuuma lacag isiiya male marka ra'yigan ka hadla Sheekh Shariif Mr. Hassan Sheikh madaxweynaha haddii asaga aan ka arki lahayn isagana waa taageeri lahayn sababtoo ah waa shakhsi Soomaali anagoo kala ah there's no difference ani asaga wax maartay aan kala duwanahay male laakiin I'm sorry madaxweynaheena oo hadda noo sii hayay xilka ilaa 8 Febraayo ilaa hadii laga baqo sidaan ugu lisnay naguma soo hambaynin Soomaalidu mahmaahda ay adduunka number 1 ku tahay sidaan ugu lisnay naguma soo hambaynin marka waxa la doonayaa waqtiga haduu yimaado transfer power in peaceful manner in lagu sameeyo qof walba waxa tiraahdaa gaalka dila gartiisa si waxa sameeysaa Farmaajo beenta waa la ilooba ayaa la yiri ladies and gentlemen beenta waa la ilooba ani haddaan maanta niraahdo aniga waxaan ka dhashay reer boqortooyada Sacuudiga oo maalin damba ay weydiisay tiraahday ka dhalatay tiraahday waan iloobaya ilaa waa beene Mr. Farmaajo waxaan ku arkay ereyadiisa iyo waxyaabaha uu yiraahdo inay yihiin consistent ereygan la yiraahdo waa muhiim luqadda Ingiriiska haddii ay weydiisid Mr. Farmaajo magacan Farmaajo oo laga wado cheese-ka laga wado ee la cuno sidee kugu baxday hadduu ku yiraahdo anoo Farmaajo cunay igu baxday ama hadduu ku yiraahdo anoo Farmaajo baasta ku cunayo halka meel uu kaaga sheegay ayuu ku soo laabanaya taasoo ah runta lama iloobo wixii waa run marka eraya dhan uu ka dhawaajiyay waraysiyo waxaan daawaday oo aan soo gudbinayaa waraysiyo radio uu siiyay website uu siiyay hadaladiisa ayaa dhamaan isu miisaamay erey kasta uu yiraahday waa consistent waa commit waxba iska bedelan siyaasiyiinta inta badan hadaladooda way liqaan oo ah haddii aad tiraahdid warniyahow lacagtaas lagu soo eeday ma xaday maya lacag anigu ma xadin wuxuu ku leeyahay lacagtaas $100 waxaan ku bixiyay waxaas xaraagina jeebkayga ayaan galiyay hoos ay ka dhacday ku leeyahay siyaasi kuma waan xaday asoo xaday marka isagu wuxuu ku leeyahay wadanka waxaan ugu socdaa in sharaftii iyo karaamadii Soomaaliya dhalinyarada da'doodu ay ka yar tahay oo ugu badan kuwa taageera iyo hablaha Soomaaliyeed Soomaaliya sharafi karaamay lahayd Soomaaliya waxay lahayd traffic light ay lahayd waxa laga yaabaa in traffic light what is he talking about traffic light waa muhiim dhalinyaro ay weydiiyeen hadda ka hor video inaan soo tarjumay aan soo galiyay oo traffic light ah waxay yiraahdeen macallin Cabdinaasir are you kidding me Somali with traffic light Somali traffic light ay lahayd habeen hore wax walbo aan soo galiyay macna ay leeyeen waxaan soo galiyay Allahu naxariiso heeso ku dhawaaqay ku luqeeyay Maxamed Mooge oo waagi iskuulka uu soo daayay waxaan ahay warigi dugsiyada dad badan ayay soo kaxay shucuur dad badan ayay
dad xataa wadaadda ayaa waxay yidhahdeen caawa shucuurteeda ilin ayaad ay keentay ay yidhahdeen dad wadaadda oo xataa heesaa aan jecleen sababtoo ah you go back waa laabanaysaa arday baa nahayo ubadkii waddanka iyo ceel jaalle xaggee jirteen ceel jaalle oo joogayseen ceel jaalle ma waxaad i leedahay dadka ku gumaadaya xilliyadan ugu dambeeyey oo dhallinyarada ama isbaarada dhigta waxaasay yaqaanaan waa the first time in my life aniga aan dareemay in mudane farmaajo uu soo celin doono waagii arday baan ahayo ubaxii waddankan ahay waxaan ordaya waddanka inaan aabiyo hooyo waxaasaan dareemay habeenkii Mr. Farmaajo London aan ku qaabilay shakhsi safaaradda Soomaaliya ee Belgium u shaqeeya ayaa arin aan ka maqlay ee aan la yaabay wuxuu yiri calanka Soomaaliya waa nin taagan hadda korna waa sheegay calanka Soomaaliya waa nin taagan ayuu yiri fadlan waxaan ka codsanayaa inaad shaqeeysan video ninka taagan madaxa waa hal labada dhinac iyo lugahana waa kaas hadda wuxuu yiri mudane Farmaajo waxaan ku jirnaa madaxii kaliya inuu taagan yahay labadii gacmood iyo labadii lugood ay go'een ninka xilliga uu hadlay iyo xilliga Mr. Farmaajo inta ugu dambaysa qofka ugu dambeeya oo hadlaya Mr. Farmaajo note ayuu qaatay hadalkiisana jawaabtiisana waxay ahayd haddii aniga Soomaaliya aan maamulkeeda gacanta ku dhigo waxaa jira xayawaan ilaahay abuuray oo lugta ama jilibka ama gacanta haddii laga gooyo isla markii ay u soo koraysa ayaa jirta ilaahay ayaa soo abuuray bani aadamka ma aha waa xayawaan duurka ku nool Soomaaliya waa soo kabsanaysa ayuu yiri marka ma ahan siyaasiyiinta oo la yiraahdo career politician ka la yiraahdo oo yaqaan qaabka loo hadlo waan ku faraxsanahay waddankeena waxa idin ka ballan qaadaya inaan waxaan u sameeyo tabcan ma sugayno sanadka ugu horeeya in qaxootiga sayidka hoostiisa jooga ama dadka waddankeena fitnaynaya ama inuu gabi ahaan uma aragtay ka tirtiro qof sugaysa male wuxuu u baahan yahay qof walba inuu la shaqeeyo uu gacanta qabto oo isbedel uu sameeyo laakiin muhiimadda uu la yimid waxay tahay niyad fiican cadaalad iyo la dagaalanka musuqmaasuqa oo boqolkiiba boqol lagu taageerayo maxaa loogu taageeraya waxaa loogu taageerayaa isbedel ha ku taageerin haddii aad isku cid aad tihiin aad ku taageeraysid war ninkan waxaan ku taageerayaa kaliya isku cid baan ha ku taageerin qofkii ku taageerana waxba tari mayso waa waste of time ku taageer in uu yahay nin Soomaaliya u soo istaagay oo wadani ah oo maanta raba sharaftii iyo karaamadii inuu soo celiyo oo Soomaali meelaha qaarkood oo lagu fadeexiyay humiliationka lagu sameeyay maanta annaga inaga bilaabatay oo Soomaali ah humiliation lagu sameeyay humiliation arrinkan waa la fadeexiyay xawataako waa qaawantahay maanta xawataako waa in mara lagu dadbaa ninkii ku dadbi lahaa haddii ilaahay yiraahdo 9 February haddii laga bilaabo waa mudane Farmaajo marka aan ku soo celiyo ma waxaan ka tirsanahay dadka u ololeeya Mr. Farmaajo oo staffis ka mid ah maya ma isgool baan ka mid maya ma isku Mareykan baan nahay maya ma isku cid baan nahay maya imisa jarayaan sarnay hal habeen ayaan waxaan la qaatay hal saac ayaan la qaatay oo aan dhageystay intii kalena waxaan aan ku qarash gareeyay oo waqtigayga aan geliyay inaan daawado videoiska markaan comparison ku sameeyay dad kale ama aan soo barbar dhigay waxaan arkay in boqolkiiba boqol aan scale aan u sameeyay inuu yahay shakhsiga kaliya ee Soomaaliya iminka lagu aamini karo oo leh wax walba oo laga rabay ee Soomaaliya qabiil ma maamuli karo Soomaaliya waxa maamuli kara Soomaaliya ayaa maamuli kara Soomaali adoo kala dadka daawanaya Soomaali anoo kala Soomaali Farmaajo kala ayaa maamuli kara Farmaajana wixii laga arko markuu asaga yimaado boqolka maalmood ugu horeysa ayaa lagu sameeyay madaxdeen waxaan naqaanaa in waxa laga yaabaa sheekheena Sheekh Xasan Sheekh inuu daacad u yahay shakhsi daacad ah kullay aniga waxaan ka sheegay waa qalad waa madaxweynaha qaranka inuu shakhsi daacad u yahay laakiin waxii aan rabnay kama aan arkin anaga badii dadkii way iloween badeena ayaa ugu horeysay dadkeeni la gumaaday meel walba lagu gumaaday waxaan aragnay dadkeeni in priority waxyaalo badan aan la ilowin ayaa jira madaxweynaha uu sameeyay
hadda madaxweynaha maraykanka wuxuu ku casuumay Trump wuxuu ku casuumay Nano madaxweynaha Mexico inuu yimaado markii dambe markuu ka hadlayna inaan derbiga la dhisayo ma aragtay aanan lacagta bixinaynin wuxuu yiri I cancel waayo wuxuu yiri dignityga sharafta iyo qiimaha Soomaaliya maanta oo Mexico waxa ka weyn ayuu yiri ninkaas inaan gacanta geliyo marka annaga lacag iyo waxa naga horeeya dignityga iyo sharaftii ee Soomaaliya in la soo celiyay waxaan noqonay maanta ereyga la yiraahdo mindhicir faro ka batay ayaan noqonay ereygaas waa muhiim caloosha haddii mindi lagaaga jeexo labadaada gacmood mindhicirada kuma qaban kartid faray ka badanay marka Soomaali waxaan noqonay mindhicir faro ka batay hadda waxaan lagu yaqaanaa jaraa'idada aan ka arkay 2017 iyo dhamaadkii sanadkii hore inaan noqonay rabies inaan noqonay dhaqankii aan ku faani jirnay oo maalin walba meelaha la tagnaan wuxuu ahaa waxaan ahay nation of poets nation oo waxaan naga dhashay Hadraawi waxaan naga dhashay Yamyam Ilaahay u naxariistay waxaan naga dhashay Sangub waxaan naga dhashay intaas qof oo la yaqaan oo Soomaali naga dhashay laakiin maanta Google-kii waxaan noo galay in hadda waxaan maqlay ma hubo in gabar yar lagu kufsaday magaalada Muqdisho ama meelahan kale lagu kufsaday oo 2 jir ah ladies and gentlemen 2 jir ah subhanallah marka dignity iyo sharafti iyo qiimihii aan adduunka aan ku leen waxaan nahay qaxootiga badda ku dhamaada qaxootiga diyaarad inta lagu soo katiinayo America ilaa lagu keeno maxaa la yiraahdaa Soomaaliya lagu keeno in ciidamo xuduudkeena iska soo gudbaan dadkeena ay laayaan iska laabtaan meesha doona ay tagaan in diyaaradaheena iyo wasaaraheena uu saarnaa in meel kale inta lagu dejiyo la baaro oo la yiraahdo ma soo gali kartid halkan dadkan in fara laga qaado ayaan noqonay hal maalin ayaan amaanaya madaxweynaha Soomaaliya waxyaalo badan ayuu qabtay taban laakiin madaxweynahayaasha adduunka kuwa carabta wax walba waxay yiraahdaan dadkina hoos joogay ayaa dhibkan ka dambeeyay maalintii temporary bank laga dhigay jaadka lagu sameeyay Kenya ay isku waalatay oo dagaal sokay xataa ku dhicila maalintaas waan amaanay sababtoo ah wuxuu soo celiyay qofka wuxuu sameeyay waa loo sheegay dignity iyo sharafta Soomaaliya ayuu soo celiyay waxaana hubaal ah iminka waxaanu haysanaa hub awood badan hubkaasoo ah joojinta jaadka ayaanu haysanaa hadda marka waxyaalaha kaliya ugu horeeya hadda uu isticmaalay waxay tahay every time anaga de Kenya wadankeena haddii aan dawladda iyo dadka qaarkood aan raalli ka kuma soo duuli karto de waa la shaqaanaa ilaahay u naxariistay dadkii golaha sare ku jiray waagii kay ay barooytami jirtay oo dhihi jirtay maxaa la yiraahdaa maaragtay hana soo weerin waxa soo kale waa la ogaa dignity-ga Soomaaliya ay yaalay dignity-ga iyo sharafta ay yaalay laakiin hadda maanta dignity haduusan oolin waxaa imaanaya in safaaradihii Soomaaliya ee dibadda u joogay danta Soomaaliya iyo arrimaha Soomaaliya inay ka shaqeeyaan oo Soomaalida qofka safaarada dibadda waxay u joogtaa in citizenka wadanka ku dhibaataysan maaragtay ay gacan ku siiyaan laakiin haddii ay gacan siiyaan dawladdii dhibaataynaysa citizenka sida hadda ka dhacdo wadanka Mareykanka oo kale hada dignity ma taalo sharaf ma taalo qiimana ma yeelaan waa qiimo been markaas marka mudane Farmaajo waxaan ku aragnay shakhsi ah de ma ahan in qof uu ku yiraahdo war hebel taageer inuu ku yiraahdo ma ahan ama qabiil ku taageer ama waxa dad ku taageer ma ahan isla baad qabiil iyo waxaas waa ka weynta sheekada qabiil waa ka gudubta sheekada qabiil hada waa laga xishoodaa dadkii xataa qabiilistayaasha waxay yiraahdaan war maanta arooska tolkan u socdaa ilaa xataa qabiil ma dhihi karaan marka sida kale oo hadda respect isaga loogu hayo waxay tahay baaritaan la sameeyay from day one 2016 bishii October ilaa hadda waxaan diyaariyay 185 video iyo content interview iyo almost 250 interview website ku dhiba ayaan diyaariyay oo aan haya oo solarportal.com ayaan soo gelinaya waan isu fiiriyay waan is agdhigay waan edit gareeyay waan iskudiisa waa consistent waa isku wada mid dhamaan wax iska bedelay haba yaraatay ma jirto waxaan iri this is very unusual ninkan ayay Soomaali u baahan tahay mudane Farmaajo waxyaalihii uu qabtay iyo recordkiisii wuxuu sanay soo dhigay marka hadal maxaan ku daalinaya waa mahadsantiin ugu horeyn marka qof walbo Soomaali jecel qabiilkiisu uu Soomaali yahay Soomaalinimo ay ku jirto Farmaajo fursadda ha ka siiyo true xildhibaanada ee dadka iyaga u awooda qof walbana videogan ha faafiyo sawirka ha faafiyo
waxaan rabnaa alternative ayaan rabnaa wax bedel ayaan rabnaa ma doonayno in sheekadu ay ha socoto Robert Mugabe ahata ma doonayno waxaanu doonaynaa weji cusub waxaanu doonaynaa dalka iyo dadka iyo diinta iyo wax walba ayaan doonaynaa in dignity iyo sharaftii aan ku lahayn adduunka iyo Africa in la soo celiyo waxaana noo soo celin karaa mudane Farmaajo ayaa noo soo celin karaa marka insha Allah waxa ugu weyn waxay tahay in transfer of power or peace si nabadgelyo ah wadankii maaragtay uu ku helo oo transfer of power oo wanaagsan uu ku helo wadankiina nabad Allah u keeno dadkii ku dhinteen Ilaahay u naxariisto laakiin haddii loo fiiriyo long term haddii loo fiiriyo mustaqbalkeena waa bright mustaqbalkeena waa mustaqbal fiican dhalinyarada hadda dhalatay ama jaamacadaha ka soo baxay ama iskuulada ka soo baxay mustaqbalkeeda Soomaaliya waxay soo martay 25 years oo zero ayay soo martay laakiin insha Allah ayaa wax walba insha Allah waxaan hubaa in haddii uu noo yimaado mudane Farmaajo rajadeena ay soo laabanayso waan islaamaya soloport.com videogan share ku sameeya waxaan leenahay guul insha Allah 9 Febraayo waxaan oo balana inaan u dabaaldegno hadduu alla yiraahdo mudane Farmaajo oo Ilaahay nooga dhigo hadduu yahay kii wadanka noo soo celin lahaa Ilaahay nooga dhigo waan islaamaya wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh